وري عبد الرحمن أحمد محمد oo loo yaqaan Shiina Wadani kana mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada Puntland waxa uu 25kii Sebtembar shil gaari ku galay magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland muddo 2 maalin ah waxa lagu daryeelayay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka balse daruufaha caafimaad dartood looma heli karin adeegii degdeg ah ee loo baahnaa taasi waxay keentay in si dhaqsi ah loogu soo qaado magaalada Muqdisho oo la keenay isbitaalka Somali Sudanese ee takhasusiga markii la keenay waxa si toos ah u qaabilay Dr. Cabdilcaziz Cabdullaahi Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay qaliimada neerfaha maskaxda iyo lafdhabarta Shiine wuxuu markaasi ku sugnaa xaalad aad u adag oo nafsiyan iyo jir ahaanba culays saarnaa bilowgii markaan dabcan imi hospitaalka dhakhtarku wuxuu ii diray baaritaano kala duwan sidoo kale wuxuu ii diray MRI sidoo kale wuxuu ii diray X-ray dhammaantood waxay ahaayeen kuwa fududeynayay inuu ogaado dhaawac ay soo gaaray iyo dabcan dhibta ay soo gaadhay sida uu xalin lahaa waliba si gaar ah MRI waxay ahayd meeshii uu aan ka tibaaxay operationka inuu sameeyo iyo dabcan qaabka uu sameeyo waxa xusid mudan in dhakhtarku markasta uu ahaa dhakhtar naxariis badan xaaladda caafimaad meesha ay marayso dhaqdhaqaaqadii la wadaagayay qaliinada lagu guuleystay iyo dabcan treatmentigiisu ay ahayd mid diyaarsan guud ahaan isbitaalka iyo shaqaalaha iyo tiimka la shaqeynayaba waxay ahaayeen kuwo markasta u diyaarsan in ay dabcan si kasta daqiiqad kasta iyo waqti kasta iyo xilli kasta ay tahayba habeen iyo maalinba waqti dambe iyo waqti horeba in ay ka jawaabaan baahida caafimaad ee xilliga aan dareemay waa mahad celinaya guud ahaan dhakhtarka iyo Somali Sudanese Hospital sidoo kale waxaan mahad celinayaa tiimkii dhalinyarada ahaa ee la shaqeynayay dhakhtarka kalkaaliyaasha caafimaad oo ahaa oo iyagu waqti kasta oo aan la soo xiriirno anytime waqti kasta xataa shaqooyin ku jira operation ku jira noo soo jawaabaya xaalad caafimaad kasta oo baahan marka waxaan qirayaa in Somali Sudanese Hospital ay tahay adeeg diyaarsan lagu kalsoonaan karo 100% xilligan anigu marka aan imaanay xaaladda caafimaad ahayd mid serious ah maantayna aan ahay 100% mid ku fariiso Soomaaliya maalin maanta ka dambaysa He sustained road traffic accident and he sustained a fracture dislocation at the level of 4 and 5. The bone is fractured and the joint were locked. wuxuu si daran uga dhaawacmay lafdhabarta iyo qoorta gaar ahaan dhaawaciisu waxa uu gaaray heerka C4 ilaa C5 lafihii qoorta ayaa booskoodii saxda ka baxay waxayna u siqeen dhanka hore taasi waxay keentay in lafdhabartu ay isku xanibanto dhaqaaqiina uu istaago markii naloo keenay xaaladiisu waxay ahayd mid aad u murugo leh maxaa yeelay bukaanku wuxuu ka cabanayay curyaannimo gacmaha lugaha iyo xitaa qoortiisa oo uusan dhaqaajin karin wuxuu waayay xakamayntii kaadi haysta iyo saxarada durbaba markii loo sameeyay habraacina baaritaanada waxaa noo soo baxday natiijo ah in si degdeg aan u go'aansanno inaan ugu samayno bukaanka qalliinka oo aanan ka daahin intii lagu jiray qalliinka waxaa laga saaray lafihii burburay iyo weliba sidoo kale waxyaabihii kale ee dhaawac ka dhashay kadib waxaan booskoodii dhignay oo aan ku rakibnay mid ka mid ah lafihii jajabay ama kala goosidii kala siqay waxaa lagu adkeeyey boolal iyo saxan si ay u noqdaan kuwa xasiloon qalliinkan ayaa loo yaqaanaa ACDF waana hab caalami ah oo lagu badbaadiyay dhaawacyada lafdhabarta qoorta alxamdulilah natiijadu waxay noqotay mid aad cajiib u ah maalintii labaad qalliinka kadib wuxuu bilaabay inuu dareemo isbeddel markii loo bilaabay qaybta rehabilitationkana si tartiiba ayuu ula soo qabsanayay socodka marba marka kasii dambaysa sidoo kale maalintii kasii dambaysa horumar muuqata ayuu samaynayay maalintii 21aad wuxuu istaagay isagoon cidna ku tiirsanayn wuxuu dib u helay xakamaynta gaadidiisa waxaana sidoo kale soo laabatay awooddiisii dhaqaaqa gacmaha iyo lugaha sheekada Shiina Wadani waa mid qalbiga taabanaysa waa safar u dhaxeeya curyaannimo buuxda ilaa uu maanta socdo hadlo oo uu dib u helo noloshiisii waa guul ku timid isku dhafka qadarka alle dadaalka dhakhaatiirta iyo adeegyada casriga ah ee isbitaalka Somali Sudanese Shiina maanta wuxuu astaan u yahay in rajada aysan marnaba dhammaan xitaa marka ay noloshu mugdi noqoto wuxuu xasuusinayaa in caafimaadka saxda ah uu nolosha qofka u bedeli karo si la mid ah sida ay cadceedu u kala qaado mugdiga hal ilbiriqsi oo iftiin ayaa ka adkaan kara saacado badan oo mugdi ah